Assalaamu calaykum. Halkan waxaan maanta ku soo qaadanaynaa bulshada caalamka go-aankii ay ka qaadatay ee ay soo saartay oo la yiraahdo STC ee ah si ku meel gaara 3 sanadood in maamul dimuqraad ah technocrat ah lagula wareegi doono dalka Soomaaliya oo bulshada caalamku ay xoogga saari doonto sidii loo bedel lahaa. Soo jeedinta STC aragtida maamul technocrat ah iyo faa'iidada ugu jiri karta Somaliland. 3 sano ee ku meel gaarka maamulka technocrat ee loo yaqaan STC waa qorshe lagu bedelayo nidaamka siyaasadeed ee hadda ka jira Soomaaliya, kaas oo ku saleysan awood qaybsiga beelaha iyo danaha kooxaha siyaasadda, laguna bedeli doono golo technocrat ah oo aan dhinacna u janjeerin. Ujeedadu waa in la soo celiyo hay'adaha dawliga ah, la dardargeliyo dib u habeynta iyo la dagaalanka musuqmaasuqa, lana diyaariyo Soomaaliya si ay ugu gudubto nidaam dimuqraadiyad ah oo dhab ah, iyadoo laga fogaanayo xayndaabka siyaasadeed iyo carqaladeynta, isla markaana la xoojin doono hay'adaha rayidka ah iyo aqoon-yahaniinta. Inkasta oo aan si rasmi ah loo ansixinin, hadda soo jeedintani waxay ka turjumaysaa niyad jabka gudaha ka taagan nidaamka hadda jira iyo rabitaanka hoggaan dhexdhexaad ah oo dib u habeyn keeni kara. Tallaabooyinka ugu dambeeya ee beesha caalamka. Bishii November ee 2024 ama 2024 Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ayaa ansixiyay in la dhiso howlgalka ku meel gaarka ee taageerada Qaramada Midoobay ee Soomaaliya UNTMIS, taas oo bedelay howlgalkii Midowga Afrika ATMIS. UNTMIS waxa ay si rasmi ah xilka ula wareegi doontaa bisha Luulyo ama Julaay ee sanadkan 2025, iyadoo xoogga saaraysa taageerida dib u habeynta siyaasadda, xoojinta hay'adaha amniga ah, hirgelinta isbedelada dastuurka, dhiirigelinta xuquuqda aadanaha iyo horumarka bulshada. Kala guurkaasi wuxuu socon doonaa ilaa Oktoobar 2026, markaas oo laga filayo in dowladda federaalka ee Soomaaliyeed ay si buuxda ula wareegto mas'uuliyadda. Saameynta dowladda Soomaaliya laga bilaabo bisha 7 2025. Cadaadis cusub oo ku saabsan dib u habeyn. Dowladda Soomaaliya waxay la kulmi doontaa kormeer caalami ah oo joogto ah oo sii xoogeysanaya iyadoo la taageerayo maalgelinta horumarka lagu xiran doono shuruudaha la xiriira hufnaan iyo waxqabad. Waxaa jiraya cadaadis sii kordhaya oo ku saabsan la dagaalanka musuqmaasuqa, bixinta adeegyada dadweynaha, dhamaystirka dastuurka, hirgelinta doorashooyinka dadweynaha, madax bannaanida amniga iyo maamulka. Markii UNTMIS ama UNITMIS la wareegto, waxaa jiri doono korjoogeyn ama kormeeryo buuxda oo beesha caalamka ay ku yeelan doonto howlaha dib u dhiska dowladnimo. Xukuumadda hadda jirta waxaa laga yaabaa in laga dhigo awoodda ay ugu lug yeelan karto heshiisyada beelaha ee ku saleysan saami qaybsiga si loo gaaro natiijooyin la cabiri karo. Saameynta technocrat oo sii fidaysa. Inkasta oo aan si rasmi ah loo hirgelin fikradda ama hindisaha STC ayaa si xawli ah u kasbatay taageero gudaha ah iyo mid dibaddaba, gaar ahaan dhalinyarada, bulshada rayidka ah iyo kuwa isbedel doonka ah. Saaxiibada ama bulshada caalamka waxay bilaabi doonaan inay taageeradooda u weeciyaan hay'adaha aan siyaasadda ku milmin, saraakiisha rayidka ah iyo khubarada ama aqoon-yahaniinta, taas oo wiiqi karta saameynta kooxaha siyaasadeed ee dhaqanka. Gunaanad. Soomaaliya oo joogta laba waddan dhexdooda. Laga bilaabo bisha 7 ee sanadkan aynu ku jirno 2025, Soomaaliya waxay gashay xilli go'aan qaadasho leh. Beesha caalamku waxay si cad u muujinaysaa in ay doonayaan nidaam iskaashi cusub oo ku saleysan isla xisaabtan iyo dib u habeyn. Mar walbana Soomaalida ay ka taageeri doonaan ciddii la timaada dimuqraadiyad, isla xisaabtan iyo horumar. Haddii hoggaanka hadda jira uu iska diido isbedelka, waxay wajihi doonaan go'doomin iyo kacdoon cusub. Haddii ay aqbalaan maamul furan oo technocrat ah, xitaa iyadoo aan si rasmi ah loo qaadan STC, waxay furo u noqon kartaa taageero ballaaran oo midnimo qaran leh. Haddaba qaybta labaad waxaan ku soo qaadanaynaa
sidii aan u eegi lahayn ama aan ugu suubin lahayn analytics annagoo baaritaan cusub sameynay fursadaha Somaliland ee ku aadan STC ka qaybgalka geedi socodka caalamiga ah. Inkastoo Somaliland ay sheegtay madax banaanideeda ilaa iyo 1991 ka qaybgalka hindisaha STC wuxuu fursad u siin karaa inay ka mid noqoto geedi socodka siyaasadeed ee caalamiga ah oo ay fursad u hesho iskaashiga caalamiga ah oo ay bixinayaan bulshada caalamka, taasoo laga yaabo inay kor u qaado aqoonsigeeda. Ka faa'iideysiga dib u habeynta dowladda federaalka. Haddii STC uu hirgalo, waxaa jiri kara dib u habeyn in lagu sameeyo dowladda federaalka, taasoo Somaliland u ogolaan karta inay ka faa'iideysto isbedeladaas, gaar ahaan haddii ay door weyn ka qaadato bulshada caalamka isbedelka ay keenayso. Xoojinta doorka technocrat. Maadaama STC uu diiradda saarayo hoggaan technocrat ah, Somaliland waxay fursad u heli kartaa inay la wadaagto khibradeeda dowladnimo dimuqraadiyad ee ku aadan maamul iyo horumar, una noqon karto Soomaaliya oo dhan hoggaan laga barto dimuqraadiyadda iyo maamulka, taasoo kor u qaadi karta sumcadda maamulka Somaliland. waa mahadsantihiin. magacaygu waa Yaasmiin Kastan.